mahadsanid kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala xiriiraysa halkaad nagala socotaan waa hoyga Soomaalida Holland oo aad ka dhageysataan FM-ta Amsterdam iyo barta internetka ee ciwaankeedu yahay dalmar.org. soddonka bisha April oo ah maalinta la xuso dhalashada boqoradii dalkan Holland ayaa isku bedeshay maalin baroordiiq ah oo madow. calanka dalka ayaa hoos loo dhigay kadib markii nin gaari wata uu ku laayay dad isugu soo baxay fagaaro weyn dabaaldega maalinta boqorada dalka Netherland oo lagu qabtay sanadkan magaalada Apeldoorn ee dalkan Holland oo 89 kilomitir u jirta magaalada madaxda Amsterdam. ninkan ayaa si bareer ah ula dhex qaaday gaari uu watay shicib daawanayay bas ay la socdeen reer boqor oo isla markaa marayay goobta dabaaldegu ka dhacay. waxaanu si xawli ah u soo jiiray daawadayaasha isagoo ujeedadiisu ay tahay in uu baska boqorada dalkan Holland iyo qoyskeedu la socdaan waxyeeleeyo ama shirqoolo. waxaana shirqoolkan ku qurwaayay ugu yaraan 4 ka mid ah shicibkii daawanayay dabaaldega 13 qof oo kalena waa dhaawac oo qaarkood ay halis yihiin. wararkii ugu horeeyay ee ka soo baxa ayaa lagu sheegay dambiilaha waxlaayay in uu yahay nin 38 jira oo asal ahaan u dhashay dalkan Holland si meesha looga saaro tuhun iyo shirqool argagixiso caalami ah. boqorada Holland Beatrix iyo qoyskeeda oo markiiba meesha lagala cararay ayaa wax yar kadib kala hadashay ummadda dalkeeda TV-ga waxaanay sheegtay inay aad ula qaybsanayso dhibaatada dadkii ku geeriyooday shilka maanta. waxaanay tiri Wat begonnen is als een prachtige dag is geëindigd in een vreselijk drama. Want ons allen heel diep heeft geschokt. murugale afkiiba joogda gabay in dalkeena ay maanta tan oo kale ka dhacdo. waxay noogu bilaabantay farxad iyo rayn xuska maalinta boqoradu waxaanay isku bedeshay maalin madow. shirqoolka maanta waa mid aynu dhammaanteen si weyn uga wada naxnay intiina goobta joogtay ee aragtay dhibaatada iyo inta sida tooska ah TV-ga ugala socotayba. waan dareemi karaa sida naxdinta leh iyo u qaadan waaga waxaa meesha ka dhacay ee aad iswada weydiinaysaan. waa arrin murugo leh afkiibaa juuqda gabay in dalkeenna ay maanta tan oo kale ka dhacdo. anoo ku hadlaya magaca boqortooyada Netherland kayga gaarka ah iyo ka ummadda dalka waxaan murugada iyo dhibta la qaybsanayaa qoysaskii ay dad kaga geeriyoodeen masiibada ka dhacday dalkeenna maanta. booliiska ayaa wada baaritaano ballaadhan waxaana ilaa imika la og yahay in ninka dadka gaadhiga la dhex qaaday aanu ahayn qof hore dembiye u galay oo booliisku yaqaanaan. wax xidhiidh ahna lama leh ururo ama kooxo argagixiso ah. waxaanu haatan yeelaa isbitaalka isagoo dhaawac halisa. shir jaraa'id oo qabtay duqa magaalada Apeldoorn oo Amsterdam u jirta 89 kilomitir Fred de Graaf waxa uu yidhi waxaa ilaa imika aan ognahay in ilaa 17 qof ay wax ku noqdeen shirqoolka. 17 qofna waxa geeriyooday 4 inta kalena waa dhaawac halisa. afhayeen booliiska magaalada Apeldoorn oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa intaas ku daray in uu ninka dadka gaadhiga jiirsiiyey markii la qabtay uu sheegay in uu rabay in uu si cad oo ula kaca uu u shirqoolo boqorada iyo qoyskeeda taas oo laga hayo afkiisa intii aan lagula ordin isbitaalka kadib dhaawac halis ah oo isaga qudhiisa gaadhay. dalkan Holland oo maanta oo kale laga xuso maalinta boqorada oo ah markii ay dhalatay boqoradii hore ee dalkan Holland Wilhelmina. waxaa dhammaan dalka lagu qabtaa dabaaldegyo kala duwan iyo xaflado waaweyn. maalinta boqorada oo qof waliba iibin karo alaabta gurigiisa taala iyo waxa uu rabo ee kaleba. dadka qaarkood ayaa suuqa u soo saara alaabta duugowday ee guryahooda ku raagtay si ay u gadaan. qaar kalena waxaabay suuqa soo dhigaan badeecado kala duwan si ay uga faa'iideystaan maalinta boqorada oo ah maalin bila cashuur ah oo aad alaabta doonto gadi karto. halkaad kala socotaan dhegeystayaal warka degdega ana waa hoyga Soomaalida Holland. warkaygii maantana intaas ayuu noogu eegyahay.